inta ay Puntland jirtay haddaan dhulbahanta jiri lahayn wallaahi billaahi tallaahi galmudug burtula imaan lahayd wallahi burtula imaan reer Puntland iyo reer Qaatumo oo ku dhow inay faraha issaaraan baraha bulshada waxa ka qarxay dagaal xoogan oo u dhaxeeya labada dhinac ayagoo isku haysta maxaabiista ee Puntland wareejis shalay Puntland waxay ku haystaa Qaatumo inay ruusaara liishiyeen xaaladdu ay kacsan tahay ninkan dhalinyarada wuxuu leeyahay haddii reer Qaatumo ay jir lahayn Puntland ma jir lahayn Puntland anaga marba u gurmano وشروا ورابطي على واحد ليش قاعد بعده تارودي ساقول قد بيستري تري برجع يستري كومي سكاشكي كل يلا بقول قفا كوره شيء شروط كبار حدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قارئ وحدي رجال هذوك أحمد خمرنت أنت مقالك السنة وذاك داودون تان وهرين به سيان ولا سعتيت وحب ودع على قدام سكرايب صار مقالك لايك رأي كومنتين فيك أوكي سيدا مقالك سنة كوسو أركتين با برها بلوشة وحكي صوت دجال حوجن وأقول حي رير قاتم يرير Puntland كديمر كي Puntland شاليتو ayagoo suudad u soo xiray maxaabiis Soomaaliland ku wareejiyay Soomaaliland hadaba waxay ka xanaaqeen reer Qaatumo maxaabiistaas la wareejiyay ayagoo laga amar qaadan Puntland waxay ugu jawaabeen waxay dhaheen idinkane ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo dagaal naga dhaxeeyo dawladda dhexe ayaa qaabisheen cadowgeena qaabisheen idinkane Soomaaliland liishinina marka bari bulshada waa qasanya bari bulshada saa ayuu u xulcayaa hadaba daawadi daawanaya marka yaa qaldan Qaatumo waxay ka xanaaqsan tahay in Soomaaliland maxaabiis lagu wareejiyo ayagoo la tashan Puntland markii la weydiiyay waxay ku jawaabeen waxay dhaheen dawladda Soomaaliya anaga dagaal naga dhaxeeyo ay Qaatumo la heshiisay inay hoos imaadaan diideen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayna soo dhaweeyeen xaaladdu way kacsantaa marka ninkan dhalinyarada muuqaalkiisa ayaa dad badan ka falceliyay kadib markii uu dhahay haddii anaga aan jir lahayn oo anaga reer Qaatumo hadaan jir lahayn wuxuu dhahay Puntland galmudug qabsaleed iyo Soomaaliland qabsaleed wuxuu leeyahay markada Puntland anaga abaal u galnay iyada abaal ma lahan inayna burburiyaan ku fikirayaan marka xaaladdu way kacsantaa reer Soomaaliland waxay la safteen reer Puntland maadaama dartood isku dagaalay marka daawad adiga qaldan Puntland iyo Qaatumo yaa qaldan waxa la dabtay nimanka muuqaal u dumay dagaalkooda meel halis gaaray kuna dhow inay gacmaha ka dagaalamaanba magan istiin muuqaaladan daawada qaybta kumatiga dagaalkan ka soo cusboonaad reer Qaatumo reer Puntland bal waxa kale fikirka kumatiga inta ay Puntland jirtay haddaan dhulbahanta jiri lahayn wallaahi billaahi tallaahi galmudug burtula imaan lahayd wallahi burtula imaan lahayd 772 nin baa ku dhintay dagaalkii wax weeye goojactay 700 dhulbahantay haayeen 72na waxay haayeen harti xeerka raggaan naqanaa wali ma aragtay qof dhulbahanta oo mana sheeganaya hadii la ku reer Puntland oo inta soo baa naga dhimatay mid maxaa u dambeeyay kaale sii sido 47 dhulbahanta ku dhintay caalamiska geeridooda dhimashadooda waa la qariyaa kama aanun hadlin arinta hiilka waa ugu celiyay hiil baanu galay ciyaalada Puntland fayrs ma jawaabi jirino qalbada ma jabin jirino waxa eegay fursadda caawa qaran caawa la sugayay laakiin caawa ka jawaabaya ninka hadalka u soo dhiibay ee yiraahdo waxbaan xoreynay abaal baanu galay waa isaga weeyii atiin mulaaxa weeyii hadaba Puntland haddaanan anagu jiri lahayn dhulbahanta especially wallaahi billaahi tulaha naasaha la dheereen naasaha 7 sano Puntland jirta cidda u dhimanaysay ee futooda difaacisay anaga weeyii siyaasiyiinta iyo liidka Puntland way qarsan yihiin ka soo bilow gaalkacyo dagaalkii 1991 1993 ee ka dhacay gaalkacyo qaybtii aanu ka qaadanay waa la ogaa inta wiil ee dhulbahanta ku dhimatay waa la garanaya Puntland asaaskeedii qiimaha aanu ku bixino waad garanaysaa ilaa gaalkacyo suuqi garamaan waxa weey hadii la ku reeyay almiskaad oo maanta ugu dambaysa oo dagaal ka socdo dhulkaygii oo intaas oo furimood aan ku jirno ilaa Ergaabo ilaa iyo Shangeed ilaa Qorlugud ilaa Buqdarkeen ilaa Salinta intaasba difaac kaga jirno baa rag dhulbahante ay ku dhimanayaan caalamiskaad dhimashadooda 47 ay maraysa Abdullaahi Yusuf baan ogeyn oo Puntland madaxweyne ka soo noqday xamar inuu tago oo madaxweyne Soomaaliyeed ka noqdo 6,000 oo wiil dhulbahanta waxa weey dal ku riyaay difaacay oo dhimatay waxa ugu qaalaysan in qof kula garab istaagana waa naf weey inta ay Puntland jirtay haddaan dhulbahanta jiri lahayn wallaahi billaahi tallaahi galmudug burtula imaan lahayd wallahi burtula imaan lahayd intaasoo abaalayada jirto xeerka raggaan naqanaa wali ma aragtay qof dhulbahanta oo mana sheeganaya hadii la ku reer Puntland oo inta soo baa naga dhimatay mid maxaa u dambeeyay kaale sii sido 47 dhulbahanta ku dhintay caalamiska geeridooda dhimashadooda waa la qariyaa kama aanun hadlin mana jeclaan ka waxa soo dhayo la soo maray wali ma sheegan 10,000 wiil baan ku weynay Puntland ay maanta dowlad noqoto hore anoo mana sheeganay ma la arkay
hadda ka hor waxaa la yidhi xoolo dumar baa la yidhi xoolo dumar waraabaa ka dhaartay islaam baa waxaa la yidhi xoolay lahayd kadib waraabaa neef ka cunay waraabihii markuu neef ka cunay islaantii meel walba waxay marisay waraabaa neef iga cunay waraabaa neef iga cunay waraabaa neef iga cunay waraabihii baa markaa maqlay markaasu wuxuu yidhi waa ka dhaartay xoolo dumar waxaan tusaalaha usoo qaatay war hal maalin baa dagaalkaasi ay soo galeen oo anagu aan ogeyn 22 beri baa dhulbahanta keliga dagaalamayay isaaq iyo waxaweye huwantoodii ay dhaqaajin kari waayeen halkaa maalin wixii naga raacay waa ujeed nabata ilaa hadda waana haysataa 772 nin baa ku dhintay dagaalkii waxaweye Gowjacate 700 dhulbahantay ahaayeen 72na waxay ahaayeen harti bal percentage-ka u qeybay ilahay baa idinku dhaasheeyay nin 700 ka dhimatay baa ninkii ay ka dhimatay ama dhowr 20 ka nin maalin walba meel buu qoray waa ku xoreeyay waa ninkii 700 ay ka dhimatay aan ognahay Puntland iyadoo la dagaalsan xamar inay dagaal la gashay Somaliland waliba ciidan iyo dhaqaale iyo naf iyo dagaal siyaasadeed saddexdaba waxay ku qaaday Somaliland sidoo kale waxay la dagaalsaneed xamar bay la dagaalsaneed xamar iyo Puntland oo isaya buu gobolka Sool dagaalku ka furmay gobolka Sool markuu dagaalku ka furmay ee dhacdooyinkii foosho xumaa ay ka dhaceen ciidamada Somaliland ay shacab badan halka ku laayeen shacabkii istifaac ay galeen Puntland iyadoo isticmaalaysa dareenka iyo habka qabaliga iyadoo isticmaalaysa oo u aragta dadka uu dhiigu ka daadanaya iyo dadka Puntland ku nool inay isku hayb yihiin bay Puntland dagaal qaaday dagaalkii ay Puntland qaaday waxay ku qaaday Somaliland dagaalkii siyaasadeedna way ku qaaday oo cod dheer buu Saciid Cabdullaahi Dani uu ku yiri wad ogeydeen waliba intii nabad lagu dabaali karay ama Puntland ay eedoobi karaysay undercover bay ugu jirto had qabiil bay isku saartay waxay tiri dadka gurmanaya waa beelo kadibna dagaalkii way sheegatay wad ogeyd oo taasi waa taa maalinta xamarna way la dagaalsaneyd Somaliland way u bareeday waxayna fuushay qadiyad iyo qabiil iyo dadku Puntland iyo ku nool lascaanood inay isku hayb yihiin maanta oo xamar iyo Puntland oo steel cola ba meeshii shalay toole ay ku dagaalamayeen bay xamar timiday dagaalka Puntland halkaas ay qoonsatay hadda xilligan hadalka Puntland ama luuqada maalintaas xamse wuxuu lahaa tolla ayay lascaanood u baahna xamarka fiiri horta qofku bilaadanka waa inuu wax badan fahmaa Saciid Cabdullaahi Dani maalintii dhaweeyda uu hadlayay wuxuu cadeeyay Puntland in ay la dagaalsaneed xamar waliba ay kula dirirtay sabab la xiriira qadiyada gobolka Sool uu sheegay muna qarin uba sheegayba dartiin baan xamar ula dirirnay lascaanood cidii wax u qabatay waa la og yahay waxbaynu ku ballansanayn halka isku keenkeena buu afcad ku yiri reer SSC way ka aamuseen iyagoo eegaya xamar aqoonsi baa idinka yaala waxayna iska indhatireen xamar oo Puntland shalay toole la dagaalsaneyd in Somaliland oo iyagana lascaanood la dagaalsaneyd in iyagu xamar iska indhatireen oo lascaanood la dagaalameen Hargeysa maadaama Hargeysi ay la dagaalsaneyd lascaanood saas laajigeed waxay filayeen xilligan gobolka Sool ama Sool inay qadariso Puntland marka maanta waxay dareemaysaa meeshii shalay toole ay ku dagaalameen ee dhaqaalaha ay noqotay haday noqoto iyo haday ciidan noqotaba meeshay shalay toole ku dagaalameen inay isla duulaan ku tahay Puntland waana fariinta siyaasadeed hadda ay dirayaan yani Puntland maanta waxay aaminsan tahay gobolka Sool in laga soo weerarayo bay aaminsan tahay SSC Khaatumo maalintu xamse imaanayay Puntland waxay dareemaysay bay maanta dareemaysaa markii maxaabiista la kala wareejisay Somaliland iyo Puntland baasho Star War bay gashay marka waana siyaasaduna saaxiibtinimo iyo walaalnimo ma lahanay dan joogtaa bay leedahay aad baa inay salaaya guuleystiro ficil wax dhimanaa maalinba qof baa calo xanuun dareemaya nimankii ma jeerteen raggaa naxnaxay ee cuntada cuni jiray ee ilaahay yaqaan soo day kuwii kalena dhulbahanta maxay soo daayeen raggaa jalaysay oo dhintay oo calankii Soomaaliya ee qarmunaay u xidhan Puntland wada soo baxday horta labada reer wax isku quruna ma imika wallaahi garawaan oo joogaan oo reer Isxaaqa iyo ka dhulbaantana ka sharfada waayo dhulbahantu dadnimo male ma jeerteen baa xitaa yaabay ma jeerteeno wixii anaguna diisadina saakan waxba kama qabo waayo ragga soo daysay ma saaweego war guuliyo gobonimo
قولي قولي ورما جرتم مركز ولا برا ما هذا يسكو قرونا هذا لو إحنا بالبهانتلا إننا وحن شوقل دقمنا الله سعنو عنا قبضتين الله صاروا هيدا عالم كله قد دعويه ده محابيس تودا إنه هينا محابيس تودا إنه كاينا كبدن بينك كوي إنه كاينا كبدن درس بالله ده وين إنه كوي إنه بهنا كوي وين إنه سيدنا كوي نحن حينو نحن حني وين سيدا يا وين كوي إنه سودا يندور عليه وين هيدا الدعويه ده عالم كله دعويه الري عالم كده دعوة أنت أنا منالو حاجة خلطة هيدا وين محابيست كل شغال الله الشجاع وين محابيست اللي جالس صوت يا وحن والمحابيست النفطة هيسا مثلا صلاح القدس يا جميل جودة والما تشرترو وردت بلا آدم تني ماذا وحكي قانا ودت بات بلا آدم بات هو تمر كلام ما دارات كلام شران متشرتناي ما شرا دارات كلام متشرتناي دي لمن كقولة حتى بلا آدم كونول دارات هذا أرتوس سيدا دات كعادي كونول sida isaaq iyo ciisaha iyo hawiyaha iyo daarood u nool haddaad maqasho waa ma jartabo anu waroga ilbaxnimada yani caqli bay leeyahay ma jartabo bal waxaan falastiintan maxaabiista laga soo daayiniyo laga dacweeyo caalamka iyo adduunyada waxaan haddii kale cuna qabatana la saaraa la galo wallaahi waanu gelaynaa iyo bilaah soo dhawaada warabtiyaal waxaan ii sheegayaa maanta daarood iyo isaaq weligeed bay istiri jireen berigaan istilay 19 1200 qof baan kugu wareejiyey شروط كبار حدين بركنا عن كده قال أنا بارون دنتي ليس حين بارون وحوي رجوان استلوان الشيء أبتي شرفت الركوه هنا الهوية لفلفته هوية وطن كاجنتي وهوية وطن كشري يعني وطن كاجن كل الله بقول كوسو دبوكريو وقادريو يقول بيا هاين وحكوش يا أبتيا تذكر هيسان دول بنا والواهيان إسك سيدا يعرودي وتود وبحن يعرودي أنا وركور هنا وأنا قاعد تسيدني وحوي مركي أتسيد وإذا رجلي هيري أنا قاعد قرنين نسيدني وحوي أبتيا نبغى كانت سيها إنسان وحكى شرف الدين الأوك كنتر أيه كعش شرف الدين تدقي بيونا بالحياة وحوي هوينا اللفلف تحمر قادرة حيرنا ينوباهين ما توحى كوشة يا أبتيا هدي أنا ما تديتان كرورة ولا قحرية حتى كرورة ولا قحرية حتى سبالة ولا قحرية خاشين تبوه برعاك بحاجة كذا كسورة كشاب كسور قلي أنا مشرو وحكوا تسيا ده أنا ما تديتان أدوكم حبيست على شيء دقيقة بديش دقيقة يبريس يقبض شيء دقيقة يبريس مركل لو كادو بيو إتركوا كراشويان إكيش بقول يكون الدولار كور بس نحن بقول الدولار أدوكم دقيقة يبريس يقبض شيء تسيا بلا شرفة والله يا سبلا يبود لنا حتى ساعات على قد حساب ولا قد حياة ولا الصفر يا دلك وحوي حسب توفلنا والله كعمر ولا صار أنا يبود لنا كعن أدوكنا تلك ديدي هرتي ديدي وقال ديدي هوية اللي فلفسة هوية هي اللي فلفسة وأنا نفقوهن أنا لو استقبلي على كسر بلي جرينا ولا بوانا كنا سكسو درجة ناسو سكسو درجة وكوسو دني غريو ده يعني وكوسو دني سكسو درجة أدوك الأسبوع تقولوا شروط الأول حلا حكاية الرجع كأنه تمر كراعة كده كده نفط كل عليها وأنا قبل ما نروح عسى تعرف ما نروح كده واحد لا قبل لبلا الصور ويكردوين حتى كار نلبانتو waxay u niikinayeen Soomaaliya xanuun ay Soomaaliland ka qabaan awgeed ba waxay sameeyeen in maxaabiistii Soomaaliland ay ka qabsadeen inay calanka buluugga Soomaaliya ay u xireen ay Muqdisho ka dajiyeen iyagoo ku taabanaya isla markaana waxa weeyaan xanuun kaga dhigay Soomaaliland hadaba maanta gobonimo dhacday gobonimo maanta dhacday waxa weeye Soomaaliland waxay sameysay inay suul u xidho nimankii ay qabatay qaar badan waxay isweydiinayeen war nimankan waa saraakiil iyo niman professoraan niman xunba ma yahay maxaabiis ma yahay adduunyadu waa halka labadiisa garin ma jeerteeka nimanka la yiraahdo haddii siyaasad laga hadlo laguma imaado dhulbahantaa la sheegay in mas'uul waxa ka ah ma jeerteen baa mas'uul ka ah run haddii la doonayo laba qodob baa meesha yaala dhulbahante ma jeerteen baa mas'uul ka ah heshiiska anigu aan doonayo dantayda waxaan ka arkay derayo dantayda aan ka arkay waxa weeyaan maxaabiista laascaanood ku xidhan inaad gacanta ii soo geliso aniguna aan maxaabiistaadi gacanta ku geliyo taas waa qodobka labaad inaan isku fura Hargeysa iyo Garowe heshiiska meesha yaala cid kalena kalama hadlayo inanka ma jeerteen baan kala hadlayo Garowe jooga ee madaxweynaha ka ah haatumayo
khayaanayan iyo barnaamijka tiktok iyo facebook la iska difaacaya anigu ma aqaano wariya barnaamijka tiktok la iska difaacaya anigu ma aqaano siyaasad baan aqaana siyaasaddu dan joogtaa bay leedahay saaxiib joogtaa maray are you okay you understand ila difaantaan rajeynaya are you okay صح saaxiib joogtaa mala siyaasaddu dan joogtaa bay leedahay madaxweyne cabdiraxmaan ciro danteena wuxuu ka arkay garowe danteena wax kastaba u maraya wabillahi tawfiiq waryaana waan idin salaamayaa waxaan u jeeday reerkaygii dhulbahante oo dhalinyaradiisii oo dhan madaxweynihii puntland caynayaan saciid cabdilaahi deni horta saciid cabdilaahi deni puntland kaliya madaxu maaha daaro ismaaciil oo dhanba madaxu yahay dhulbahantahan caayayana waa wada horgalin waa wada barbar xaaraanin waa horgalintii shalay lasoo wada xoreeyey ma garateen marka madaxweynuhuna hadal xaqa buu ku hadlay hadal beena kuma hadlin hadduu ku yidhi ama aynu si maxay tahay ama si sharci aanu ku kala baxno ama aynu si sharciya u wada joogno dee waa runtiisa ma waxaad rabtay inaad halkana dawlad ka noqoto halkana lug kula jirto tuubo ka dhuuqdo ila reer 20 meelood wax ka cunka ku mabay baa tahay waa runtiisa ama aynu inaadan wada joogno ama aynu kala baxno hadduu ku yidhi hadal run ah oo xaqa ku hadlay laakiin raggan ninka caynaya shacabkii maxay tahay dhulbahantoo dhan waxay caynayaan saciid cabdilaahi deni bay caynayaan hadday caynayaan waa rag wada horgaliina waa rag shalay lasoo wada xoreeyey ragga caynaya puntlandan iyo madaxweynahaad kala qaadaysana ilmaada reyaala way isleeyihiin shacabku waa shacabkii shalay usoo halgamay inuu saciid cabdilaahi deni soo noqdo way idinka xishoonayaan horgalnima idinku yeesayaan waa laydin ignore garaynaya waa laydinla qasan lahaa waa laydin caynaya maskaxda reerku ka socdaa sidiina dhulbahantoo kale oo indha ku garaadla af wuxuu indhahaas ku arko afka ka hadla ma aha maskaxdaas ka hadlaa reer puntland maskaxdaas ka hadlaan idinkuna indhahaasad ka hadashaan waxaad indhihiinu qabtaan baad ka hadashaan kadega ninka akhlaaq ma leeyihiin horgalin batin raggiina maxay tahay SNM xiratayna soo daysta ee shirkadaha laga leeyahay SNM laga leeyahay laascanood ku dhixidhana soo daysta inta saciid cabdilaahi deni afka ku soo kala qaadaysan xishood ma leeyihiin oo xaq dhowr ma leeyihiin oo xishmad ma leeyihiin kadega madaxweynaha nacdal bay idinku taale raggan xunxuna wada dhalinyarada ah wada caynaya horgalin waa wada weeyeen kulligood waa wada horgalin kulligood hala wada xilxidho mise dawladda ayada khaatimo oo dhan baa wada horgalina maxaa dadkan maxay caynayaan madaxweynaha saciid cabdilaahi deni maxay caynayaan saciid cabdilaahi deni dad baa soo doortay shacabkiisa soo doortay iyagaa raba iyagaa doonaya ha cayn bismillaahi raxmaan raxiim horta khaatimo naasdeer waa laga hoos guuray maamulka puntland iyo maamulka somaliland waa wada hadleen moogta maxaabiistiina waa isku sii daayeen ma garat baraangiga inta dawladuhu wada hadlayaan raalli ha noqdeen baa layidhi moogta maxaa sidoo kale isku barbardhig lagu sameeyey maxaabiista ay sii daysay khaatimo naasdeer iyo kuwa puntland ay sii daysay aad ma fahanteen kuwa puntland tay baa loo xiray suud baa loo xiray shandada alaab iyagoo labisan baa la sii daayay khaatimo naasdeer baa soo hadhay dharkii magaranaysaa tababarkii lagu geli jiray maxay wax siisaa iyadaa baktidee eeg ma nintiisi u baktiraya nin kale wax tari kara nimankalkii raamsada ictiraafka ku raadsaday oo dharka iyagii kusoo dhaweynaya xamse gabal ciiraale baa maxaabiis wax tari kara dharkii lagu qabtay bay ku sii daayeen ilaahay baa ku dhaar iyo xoogaa la yidhi ciidanka ku tababarta meeshan dayac baa ka socda niyow khaatimo naasdeer baraangi weeye waa wareedheen homeless baa tihiin markii dawladuhu si sharaf leh maxaabiista uga kala wareegayaan adinku luuq garab madow idin wase dhulbaanta wuxuu yaani sheegayaa dhegeysta waxaa lagu soo sheergareynayaa majarteen iisoo gurmad baan oranayaa cabdilaahi yuusuf ninka caqli badan majarteen mana joogo mana imaan doona mana dhalan hadda ku sheegayaa rag yaqaan dhalayo xiniyo badan buu ahaa subaxii aan aasnay maxaan dhihi puntland baa ciidamo la iska gura dashiish ciidan yare keene ursangeli ciidan yare keene markaasuu ku yiri cabdilaahi yuusuf adeerkay wuxuu ku yiri 500 wiil oo dhulbaanta laga rabaa subaxii buu nabalmiyay cishii marka la tukanayay oo bari la gaarin 500 ee tiknikadeedii banayay nus qiyaama kalgacay ka dhacay waa lagu kala baxay eelbarka nin mareexani ciidankiisa qabtay in abuu hodlana ana qabtay daar cali soo jooga caaw hawiye badanna waa joogaan nimankii taariikhda lahaa oo garanayeen waa joogaan ma sheegan adeerkay cabdilaahi yuusuf baan raacay 600 oo nin baa raaciyo 300 oo nin ee tahay axmed garad xamar buu geeyay 2 nin oo ninkan reer qalafo jifa la yiraahdo uu garanayo eeg waxaa la beenaalaha nin dheer iyo nin dhawey marqaatiga nin dhintay nin dheer marqaatiga gashta jifa hadda nin reer qalafo meena bas la joogo weydii ciidanka dhulbaanto raacay mid igama soo noqon weligay maan ku weydiin
weligay kumaan weydiin kismaayuu dhahay morgan maxaan dhihi rabaayay absamay iyo harti baa loo dagaalamayaa 300 nin baan ku raaciyay weligay kumaan weydiin intay ku dhintaan kuma dhihin xataa magtooda kaamaan soo raadin gobonimada aan isdheernaa intaa ah 700 wiil baa iga dhintay 77 harti oo dhan ka dhintay marka dhulbaanta laga bixiyo ma jarteena maxaan Umar Maxamuud 6 qof ka dhinta Ismail Maxamuud 2 qof ka dhinta bahad dhulbaanta cidba kama dhiman warsangeli baa ugu badnaa reerka aniga la dhintay oo maxaan dhii rabaayay 77 nin ku jiray marka makaana sabsana mise waa digana sabsanta mise waa doqon baanay talo doqon dhulbaanta waa doqon baan siri waayo qofka taariikhdiisa inuu qirtay ahayd sida ayaga u qiranayaan hadda qiran maayo mana ku raacayo mana ku weydiinayo because hadda time ma hayo furin baa igu furan mar baan ku jawaabayaa markaana Allah gaarsiin dhulbaantaha meesha ku jirana waxaan oran lahaa qof ma jarteen ha u jawaabin madaxweynahooda u jawaabin hala ay tamin waxba ku darsanin labada dhagood jaf inta isa siiso halka ka bax taariikhdeeda iyo waqtigeeda iyo timekeeda bay imaan doontaa markay imaatana rag wuxuu iska dhihi jiraan iska dhehna ila meesha naaga xifaaltami maayaan rag wuxuu iska dhihi jiray baynu iska dhehna laakiin no this time aniga hadalkayga waa jaray intaana Yaaqub Siyaad baa la igu soo sheergareeyay wuxuu sheegay Yaaqub Siyaad hawareerta baa horta lagu caynay taaw siyaasad waalan ayaa ka bilaabatay waqooyiga Soomaaliya waa ilaa gurayay siyaasad waalan bilaabatay nimankii dhulmahante iyo warsangili horta Allah u naxariisto heer aakhirad waa heer adduunyo maahan heer adduunyo maahan nimankii ma jeerteen heer cadgato waa iibsaday ya horta in la kala laandheereysay sawirada ay ka muuqataa in la kala laandheereysay ya oo la kala lafweysay meesha ay ka muuqataa waqooyiga Soomaaliya isaaq iyo wax u kala go'nay oo Ilaahay ku rooyay nimankii ma jeerteen haddana waa heshiiyeen maxaabiistii ma jeerteen ay wareejiyeen sawirkooda u jeedin maxaabiistii dhulmahanta wareejiyeen waa u jeedin waxaana ku soo xigi doonto dagaal cunaqabateena la saari doonaa iga qora warsangili iyo nimanka la yiraaho marka nimankii dhulmahanta ahay iyo nimankii warsangili maanta waa la kala iibsaday ya maxaabiista la wareejiyad u jeedaan maxaabiistan intay qabsadeen ma jeerteen u libseen idinka baaba iswaalwaalaysaan la dhahay waxaana ku soo xigi doona maxaabiista la kala wareegsaday iga qora horta warsangili awalba homeless oo ahay asaga waa qaxooti u baahayba oo isugu magaaladiisa ceelgaabo waa lagala wareegay ceelgaabo guryihiisii waa la dhisanayay maaldood waxa arkayay wiil isaaq oo dhisanayaan oo ilaa guryo blokeeti iyo keensadeen boosas iska dhisay kuwaas ayaga homeless awalba ahayba yaa ku soo haray waxaa soo haray nimankan dhulmaanta ayaanti isqaad qaadayay dhulmaante dekada Muqdisho wuxuu ka degsado wax ugama dambeeyaan ugama soo horeeyaan dekada Muqdisho dawladdu wax ka dejiso qaado ma laga deji karaa ilaa guran yahay meesha la yiraahdo elaborka oo la saara ku yaalo ma ku noolaahayaan dekad male cashuur meel ka soo gasho male shalayna waa laga waalay anaa haysaay shal isku haysteen nimanka la yiraahdo isaaq iyo nimankan ilaa guran yahay Puntland iyo Somaliland shal waxay isku haysteen meesha anaa ka talaan laakiin dan iyo walaalnimo looma dhimanin ina loo dhimaynina maanta sawirada meesha ka muuqda ka cadda meeshan ilaa guraya maanta si toos laakiin daarood inay wala is iibsan jireen daarood kuma cusbo daarood wala is gada jireen daarood awalba dan ilaa guraya dad dhalasho ka dhaxaysa ma wili hore is gada jireen on elef ay Ethiopia ka gada jireen maanta nin Soomaaliya ilaa guraya isaaq ay ka gataan dhulmaantii warsangili oo ka gata ma jeerteen hore daarood u gada jiray kablalax wiligiis oo gada jiray kablalaxa kaloo wiligii gada jiray nimankaan ogaadeen on elef 1 milyan ku dhawaad ayaa maartay ilaa guraya laga iibiyay nimankaan ilaa guraya la yiraahdo Ethiopianka waxaa la xasuusataan waagii farmaajo dawladdii ka horeysay mariixaanka laftirkiisa ayaa iibsanaya ogaadeenka waa ogtii ninkala qalbi dhagaxow si toosow Abi Ahmed ka gatay maanta marka ma kula tahay in ilaahay ku roon yahay nin kaleento inay faalo qor u falayaan
horta nimankii waa nimankaas waa ahaadeen laascaanana ama Puntland ama ilaahay ku roon yahay kiya tigi doona waayo nimankaan isma bixi karaan dhaqaale yar oo maamo joogto Yurub ama maamo joogto ilaahay ku roon yahay Mareykan laga soo qaadana ciidanka meesha joogo lama sii karo dekadaha cunaqabataynta dekadaha laga saarin doona waxaa lagu sameyn doonaa in dekadaha hub kala soo digi waayaan inay dekadaha ilaahay ku roon yahay waxba imaarada hadayna dekadii berbere wax uga degaynin tii boosaas iyo tii garcadna ay wax uga degaynin see u noolaaya see loogu noolaanaya laascaanood waril baadeen rayaalo waa in salaamaya nimankii maanta si toos ah loo gatay nimankii odayaasha ahay ee warsangili iyo dhulmahante si toos u gateen waa in salaamaya guuleysta siyaasadda wuxuu siyaasaddu saaxiib joogtaa malow yaa laakiin dan joogtaa ay leedahay markii la dhahayo been ma dan joogtaa ay leedahay siyaasadda maanta inay dan joogtaa leedahay shalay deni wuxuu u dagaalamaya laascaanood inuu asaga ka taliyo waa uu ku kaambeen garaynay laakiin asaga ma doonaynin inay maamul noqoto marka maamul xasan sheekh iyo ninka ilaa ku raaxa xamsa ma ka dhigi karaan kama dhigi karaan waayo ilaahay ku roon yahay meesha deegaanka la yiraahdo sool degmada sool ugu weyn waxaa la yiraahdaa Caynabo saaqaas kale marka nimankan waa saqiireen ya si toosa walaalina ayna gataa hadda dhaga weyna xaw nugu haystaa dhaga weyna nacaayo dhirti waa in salaama guuleys